Assalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta xiiseysa Konami and eFootball meel walba adduunweynaha ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub halkaad iga daawanaysaan waa Yaki Boy Gamer qofka idinla hadlaayana waa saaxiibkiin oo walaalkiin Yaki Boy kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa waxyaabaha maalinka khamiista ah la qaadi doono oo geemka laga bixin doono iyo waxyaabaha markaasi geemka lagu soo kordhin doono ama la keeni doono ayaan kula wadaagi doonaa intaan muuqaalkan gudaha usii gelin saaxiib waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalkan like saarto channelkana aad subscribe dhahdo gambalelkana aad furato si muuqaal walbo aan soo dhigo uu kuu soo gaaro aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waxaan saarannahay wadadii aan ku tagi lahayn 5,000 oo subscriber mar kale ayaan kugu celinayaa weli haddii aadan subscribe inoo saarin ama aadan nagu soo biirin please waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalkan like saarto channelkana aad subscribe dhahdo gambalelkana aad furato si muuqaal walbo aan soo dhigo uu kuu soo gaaro aad iyo aad ayaa u mahadsantahay intaas haddii aad ii sameyso muuqaalkeenii ayaa gudaha usii galay waxaan ku bilaabeynaa waxyaabaha maalinka khamiista ah sida tooska ah loo qaadi doono ayaan ku bilaabeynaa tusaalahaan haddii aan tagno geemka markaas saa usoo gasho ugu horeyn warqadan oo waxaa lagu soo bandhigi doonaa update-ka ku saabsan saa wada ogtihiinba 16 bisha koowaad oo maalinka khamiista ah oo beri ah ayaa waxaa dhici doono update farshankiisu yahay 4.2.1 ayaa dhici doono update-kan kadib waxaa arki doontaa waxyaalo aad u fara badan geemka lagu soo kordhin doono okay warqadan waan kasii gudbeynaa marka gudaha geemka usii galno tan caadi waaye iskaga tageynaa warqadan marka waxaa tegeynaa qeybtan contractiga markaa ku dhufato special players listiga ayaa ku dhufanaysaa markaa special players listiga aad ku dhufato okay dheh kadib championskan showtime-kan lama qaadi doono laakiin showtime-kan kale oo qeybtan Van Dijk iyo ay ku jiraan waa la qaadi doonaa players of the week-yadan ayagana waa la qaadi doonaa qeybtan European-ka lama qaadi doono intaan kale wax la qaadayo uma jeedo laakiin qeybtan European clubskan oo free-ga ayaga qeybtan free-ga aan hadda dhexda ku waadiyey waa la qaadi doonaa maalinka khamiista ah waa la qaadi doonaa waayahay waxaa kaloo markaasi halkaan ka eegeynaa waxyaalo kaloo la qaadayo wax kale halkaan naguma jeedno waa ka soo baxaynaa qaybta baagiska tegeynaa waxaan fiirinaynaa baagiska la qaadi doono intaan lama qaadi doono Frank Lampard lama qaadi doono AS Milan bag lama qaadi doono Barcelona bag ayadana lama qaadi doono Tobrahana lama qaadi doono laakiin bagan Arsenal hal maalin iyo saacada u harsan maanta oo kaliya ka harsan waa la qaadi doonaa oo bag kaloo ka xiisa badan ama ka wanaagsan ayaa la keeni doonaa waa kasii baxaynaa si markaasi waxyaabaha kale oo banaanka yaalo kambeenada iyo waxaas u eegno okay markaa dhinaca oo celiso showtime-kan bagan festive season campaign-kan hadaa gudaha usii galno hal maalina u harsan muuqaalkan marka aad duubayo hal maalina u harsan oo maalinta beri ah oo maanta ah arbacada u harsan bis qeybtan codeynta ayadana waa la qaadi doonaa oo qeybtii afraad oo u dambeysay ayaa la keenay waa codeynta kadib waxaa lagu siin doonaa 2025 koonis ayaa bixin doontaa shirkadda qof walboo codeyna waa la siin doonaa haddii aadan weli codeyn maanta oo arbaca ah ka faa'iideyso muusow okay festive season campaign-kan kooniska qiimo dhimista ah kooniskan oo qiimo dhimista asigana waa la qaadi doonaa maalinka khamiista ah wax kaloo la qaadayo halkaan ma jiro intaas ayaa ka cusub oo la qaadi doonaa maalinka khamiista waxaan isla eegi doonaa marka waxyaabaha markii intaas la qaado la keeni doono tusaalahaan qeybta campaign-ka festive season campaign-ka markii la qaado maxaa la keeni doonaa qof walba intaas ayuu isweydiinayaa marka festive season campaign-ka markii la qaado laba campaign ayaa ugu waaweyn oo markaas la keeni doono campaign-ka koowaad waxaa waaye 850 milyan oo downloadska ah shirkadda Konami ay u dabaaldegayso campaign-kaas ayaa la keeni doonaa campaign-kan 850 milyan loogu dabaaldegayo qaabab fara badan ayuu ku imaan karaa tusaalahaan wuxuu ku imaan karaa asoo Cristiano Ronaldo oo big time ah oo ugu dabaaldegaan qeybta 850 milyan markaasi lasoo dhexgeliyo oo loogu dabaaldego sidoo kale waxay sameyn karaan Neymar oo big time ah ayay ku dabaaldegi karaan oo 850 milyan oo downloadska ay ugu dabaaldegi karaan
sidoo kale waxay ugu dabaaldegi karaan shirkadda Konami 850 milyan waxay ugu dabaaldegi kartaa intaan sidoo kale campaign-ka kale oo markaasi asigana la filayo in la keeno waxaa la yiraahdaa Lunar New Year campaign. Campaign-kan aad ayaad ugu faa'iidi doontaa haddii la keeno asigana qaabab fara badan ayuu ku imaan karaa. Lunar New Year-kan wuxuu ku imaan karaa asagoo markaasi Alexander Arnold loogu dabaaldegay oo qaab firiyaan markaas lagu bixin doono. Sidoo kale waxay ku dabaaldegi kartaa ciyaaryahannadan oo hadda halkan ugu jeedaan oo u horeeya Bukayo Saka ay markaasi ku dabaaldegi kartaa ama campaign-ka ku keeni kartaa ama waxay ku keeni kartaa Lunar New Year-kan oo ciyaaryahanadana Seedorf iyo raggaas u horeeya ayay ku keeni kartaa. Sidoo kale waxay ku keeni kartaa Ibigiskan oo u horeeyo David Beckham iyo Pep Guardiola ayaa ku dabaaldegi kartaa ama keeni kartaa waliba iyadoo hal free markaasi lagu siinayo. Sidoo kale waxay ku dabaaldegi kartaa Lunar New Year-kan ciyaaryahannadan u horeeya Seedorf oo double booster ah ay ku dabaaldegi kartaa. Campaign-kan waxyaalo aad cajiib u ah ayuu wataa. Marka update-ka marka uu dhaco waxaa la leeyahay Streak Arena ayaa la keeni doonaa ciyaartan Streak Arena. taas warbixintan waa boqolkiiba 50 muuqaalkii kan ka horeeyeen waa kugu sheegay warbixintaas waa boqolkiiba 50 in la keenana waa macquul in markaasi la keenina waa macquul. Sidoo kale waxaa kaloo cajiib ah oo la keeni doona campaign-kan oo markaasi koonisho aad u fara badan ay ka faa'iidi doontid ayaa la soo wadaa oo la keeni doonaa. Warbixinada aan kula wadaagayo qaar waa boqolkiiba 50 qaarna waa boqolkiiba 80. qaarka boqolkiiba 50 ah waxaa waaye kuwa aan hadda kula wadaagay waaye. qaar oo boqolkiiba 80 ahna waa campaign-nada haddaba la soco. sidoo kale qaybta bontiska waxaa lagu soo kordhin doonaa ninkan u ciyaara Tottenham oo 1000 bontis ilaa 5000 oo bontis aad ku furanaysid ayaa lagu soo kordhin doonaa qaybta bontiska. waxaa kaloo meesha ka marneen in managers cusub la keeni doono kuwa hadda anshaashada kuu soo saaray ha ahaadaano ama kuwa kaloo markaasi ka xasaasisan ama ka wanaagsan ha noqdaano. qaybtan codeynta markii waqtigeeda dhammaado oo beri la qaado oo khamiista waxaa la qaybin doonaa 2025 koomis ayaa la qaybin doonaa. qof walbo codeeyay ayaa markaasi la siin doonaa. Lunar New Year-ka markii la keenana ciyaaryahannadan oo hadda halka ugu jeedaan Bukayo Saka iyo dadkan kale halka ugu jeedaan ama playerskan hadda halka ugu jeedaan ayaa la keeni doonaa. fanaanado iyo wax kaloo dheeri ayaa markaasi la keeni doonaa. sidoo kale Ibigiskan ayagana waxaa laga yaabaa in la keeno. Ibigiskan waa boqolkiiba 50 in la keenana waa macquul in la keenina waa macquul. markii update-ka uu dhaco shirkadda waxay bixin doontaa Ibigis koonisyo trading iyo waxyaabo markaasi GB ah ayay bixin doontaa sidii markii hore oo update walba ay sameyso ay u keeni jirtay ay markaasna u keeni doontaa. waxaa kaloo meesha ka marnayn players of the week-yada waxaa u horeeyay saddexdan rag oo halka ugu jeedaan Alexander Arnold, Doku iyo linkan la yiraahdo Rafinha ayaa u horeeyo. 11 qof oo markaasi la filayo ay u badan tahay in la keenana waa sidan ay u muuqan doonaan Alexander Arnold, Rafinha, Daggan ayaa u horeeyo. Daggana u horeeyo ciyaaryahannadan haddaba dhagahaaga fur in wax laga bedelo waa macquul in sidooda lagu keenana waa macquul. intaas ayaan jeclaystay inaan markaas idin la wadaago. please waxaan ka codsanaa haddii muuqaalka dhammaadkiisa aad ila soo gaartay inaad muuqaalkan like saarto channelkana aad subscribe dhahdo gambaleelkana aad furto si muuqaal walba aan soo dhigo uu kuu soo gaaro.